waxaa magaalada St. Louisburg ee gobolka Minnesota maanta lagu dhaariyay Naadiya Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaan loo doortay duqa magaalada St. Louisburg ee gobolka Minnesota. Dhaarta Naadiya Maxamed ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiinta laga soo doorto gobolka Minnesota, bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo dadka ku nool magaalada St. Louisburg. I, Nadia Mohammed, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States that I will support the Constitution of the United States and the state of Minnesota and the state of Minnesota and faithfully discharge and faithfully discharge the duties of the office of mayor the duties of the office of mayor for the city of St. Louis Park, for the city of St. Louis Park in the county of Hennepin, in the county of Hennepin and the state of Minnesota and the state of Minnesota to the best of my judgment and ability. to the best of my judgment and ability. Naadiya ayaa dadkii ka soo qayb galay waxay ugu mahadcelisay sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen dhaarteeda. This is a very proud moment for each one of us. We are grateful to our families, to our friends, to our colleagues, and those watching at home who are able to join us and to see this momentous occasion. So, thank you, everyone. xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka mid ah Koongareeska Mareykanka lagana soo doortay degmada shanaad ee gobolka ayaa ka soo qayb gashay dhaarta Naadiya Maxamed waxayna ku amaantay dadaalka ay gaartay Naadiya Maxamed. aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in caawa aan ka soo qayb galnay dhaaristii Naadiya Maxamed oo noqotay hadda qofkii ugu horeeyay oo Soomaali Muslim ah oo magaalo Mareykanka ku taalo meeyar ka noqday. bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxay uga dhigtay wax weyn ay uga dhigan tahay waxa farxad weyn waa guul annaga aan guul la dareemi karo guul aan ku wada u baahanahay inaan ku wada faraxno waana guul aan u baahanahay in aan sii badsano. Ilhaan Cumar oo aqoon durugsan u leh Naadiya Maxamed ayaa sheegtay inay sharaf u tahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed guusha Naadiya Maxamed. Naadiya iyadoo yar aan bartay intii aanan loo dooranin city council marka doorashadeedii city councilka waan la socday hadda mayorkana waan la socday isbedelkii iyo koritaankeeda waan arkay waa wax oo aan aad iyo aad ugu farxo markasto aan la joogo iyada wax kasto ay idin furan gabdho Soomaali haddaad tihiin haddaad isdhehayseen mayoraan noqon karaa waatana maanta walaashiina mayor noqotay waa noqon kartiin haddaa isdhehayseen state senator state representative aan noqon karaa waxaa haysatiin Zainab Maxamed iyo Hodan Xasan haddaa isdhehayseen congress aadaya Ilhaana idin joogto. Umar Faatax iyo senator Zainab Maxamed oo labaduba ka tirsan aqalka sare ee gobolka Minnesota oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa dareenkooda muujiyay sida ugu faraxsan yihiin guusha Naadiya Maxamed. waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo the ceremony of duqa magaalada Mayor Nadia Mohammed for St. Louis Park. aad baan ugu faraxsanahay Nadia iyo dhaarashadeeda maanta waa sharaf u ah dadkeena dhan iyadana waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu xilkan uu saaray u fududeeyo insha Allah. maamulaha shirkadda Hinaan Hijaab Hilaal Ibrahim oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay dalka Mareykanka kana asaasay ganacsi guuleystay iyo Aadan Maxamed ayaa bogaadiyay guusha Naadiya Maxamed. والله ما شاء الله aad u faraxsanahay hadaan nahay dumar Soomaaliyeed hadaan nahay gabdho muslima hadaan nahay ilmo oo Mareykanka ku soo koray ama dhalinyaro Mareykanka ku soo kortay aad u faraxsanahay we're excited to celebrate this moment. waxay u ahaanaysaa diidiila aad u weyn inay u ahaato dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo historygan ka dhacay magaalada St. Louis Park. dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxay horumar ka sameeyeen arrimaha siyaasadda, waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.